quruxdiiba intay cajabisay yaan malaha waxaan isir waad riyoonaysaa waxaad arkayso qof nool ma aha. daawadayaal kusoo dhawaada qiso jacayl oo dhaba oo dhacday sanadii 1984 kuna dhacday maxamed deeq haldhaac oo ahaa qoraa Soomaaliyeed. waana qiso jacayl oo dhaba oo runtii aad uga heli doontaan halkaad kala socotaan Wararka TV. dhageysi wanaagsan. qiso dhaba oo waliba aniga ay qabsatay waliba wuxuu ahaa buugaygu ugu horeeyay buu ahaa aan qoro marka aniga oo ka imid muxuu ahaa magaalada Bulaberde aan u tagay markaas xaafad Indhaceel la yiraahdo Indhaceel oo daraawiishta kamid ahaa oo ragga ugu qaalisanaa daraawiishta ahaa oo loogu magac daray Bulaberde waa ninkii gaashaanlihii Talyaaniga ahaa ku dilay magaalada Bulaberde. marka halkaas aan doonayay marka inaan xaafadda soo arko sawirro ka soo qaato dad yaqaan hadaan arkana wax ka soo qorqoro marka kaamaraan wataa 36 ah nin dhuuban oo dheer baan ahay marka oo salwaal jeans iyo shaati cadna waan wataa muraayado oo dooga ah oo aan dadka cadceeda ka celinayo marka waxaa jirta marka xamar laga soo baxo ama gobolada kale laga yimaado meel ay gawaaridu ku kulmaan oo laga cunteeyo buurana la yiraahdaa jirta oo ku taala mahadaay agteeda marka anigo intaan marka ka soo baxay muxuu ahaa maqaaxi oo ku findhicelanaya qodaxda geedka quraca oo marka inta la jarjaray oo la dhaqay iyo maqaayadu hayaano taasa lagu findhicishaa cadceeduna ay indhaha iga hayso dhididna uu iga soo dee waa fidhada gaajada ee igu yarayaalo yaan wadada dhinaca kale baan waxaan ka arkay gaari basax oo ay gabadh saaran tahay daaqada ugu dambaysa midda ku xigta ee saaran tahay marka gabadhu dirac bay qabtaa qoor dheer oo cabaariyalana way leedahay ilka dabara sandheer indho xiribyaha iyo sunniyuhuba ay aad u madow yihiin midabkeedu waa maariin casin xigeen ah ama midabka masciideedka la yiraahdo gabadhii baa wajigaygu isku dhacay markuu wajigaygu isku dhacay oon eegay quruxdiiba intay cajabisay yaan malaha waxaan isir waad riyoonaysaa waxaad arkayso qof nool ma aha de qof saa u suuraysan noloshaydana hore uma ana arag muraayadii baan iska bixiyay bal inay wax muraayaduhu ay ahaayeen waxa xumaaga ii sawiraya iyo in kale muraayadii markaan siibay baan eegay waaba iyadii way ii dhoola cadaysay marka intay ii dhoola cadaysay oo aragtay iyaduna inaan ku foognahay oo iyadu eegay yaan muraayadii kastay gadaal baan eegay marka waxaan isla malaha qofka dambeeya iyo u dhoola cadaynaysaa adiga way dareentay marka inaan ismoodsiinayo markaan soo jeedsaday iyo farta igu soo fiiqday igu tiri adiga walaalo anigu meelan joogan garan waayo marka waxaan isri ilaa gabadha gaar markii dambe waxaan isleeyahay waa qofku yaqaano istaqaanaane de malaha adiga dawaqsano fogaantaasaad wax ka arki laadahay indhihii baan marmartay markaan marmartay oo isri balqumaat u eeg waan eegay haddana waan sixi waayay inaan horey u aragna waan gartay laamigii dhinaca kale ka taagnayd gaadhiguna wuxuu u socdaa xagga waqooyigu u jeedaa iyadu anna xagga xamar baan u soconnaa oo wadada dhinacan kale ee midigta yaan ka taaganahay iyaduna dhinaca bidixday ka taagan safar baaba tahay aduna waad socotaa dhinaca kale aad socotaa iyaduna dhinaca kale socota safar baana iyaduna dhinaca kale u socotaa iyagu marka intay quraacdeen meesha waa laga quraacdaa gaadhida xamar marka ka soo baxdo iyagu intay quraacdeen yay dhaqaaqi rabaan annaguna markaasaan intaanu quraacanay iyagaa naga soo lug horreeyey baananu dadkii ugu horreeyey baan ahaay waan soo baxay deedna markaan waxaan isiri u dhaqaaq marka u dhaqaaqasiri yaa wadada iskama aana eegina gaari xiimaya wadadii ha soo gala hoonkaa igu yeedhay anigu intaan naxay oon dib u booday yaan gariiray oo muxuu kaamaradiina way iga dhacday qalin aan gacanta ku watayna wuu iga dhacay wadnihii afkii baan gacanta saartay waxaan isira wadnuhu show naxdintii
uba soo bixi rabaa bannaan kuu soo duuli rabaa afkaan gacanta saaray bal si aan wadnaha u celiyo gabadha intay soo orotay oo ay ka soo booday gaarigii yay igu soo carartay markaas alla hoogayo baa markaasay qabatay markaasaan ogaaday marka inaan halis galay waan yara naxay way qabatay dhinac bay ii leexisay markaasay tidhi walaala gaariga maxaa isaga eegi weyday markaasaan dhahay abaayo gaariga maba arkayna adigun baan ku arkaya aniga magacaa baan idhi marka markaasay tidhi ugbaad markaasaan ku xageed u socotaa burcaan u socdaabay gaarigii baa hoonka la yeeriyey marka intaa markaan isweydaarsanay waa gaariga raacisay safarka ah waa baskii ay raacisay ugbaad wax loogu dara ma ana waan waaye burco meela ka degantahay ma aqaano de teleefanina ma jirin waaga dadkuna qabiil iyo waxaa laisma weydiin jirin reer burco iyo reer baydhaba maxamed markaynu eegayno gabadhan timaheedii bannaan yihiin cabaaryaheedii muuqdo adigan sanu labisan iyo magaalada buluburdo hadda xaalkeeda aynu ognahay qiyaastii markaa waa xilligii dowladdii hore xilligii dowladdii hore weye markaa dee xijaab ma jiro dadku lama xijaaban jirin iskuulka shaati sulaal baa lagu dhigan jiray waa 84 anaa buulo barda ka imid meesha waa buurane waa duleedka jooga ama mahaday meesha la yidhaahdo weeyaan buurana la yidhaahdaa waa la yaqaanaa soomaaliya caam bay ka ahay oo waa lagu xisaabtami jiray gawaadhidu inay istaagto oo wax laga cuno marka gabadhii sidii bay ku dhaqaaqday ku tagtay gaariga marka hoonka la yeedhiyey de si berigaana ma jirin wax social media iyo wax lakala qaataa mise xiriir dambaad yeelateen horta ma jirin runtii laakiin markaasay bilaamaysaa igu dhalatay inaan sheekadii dhab ahaan u qoro marka wixii falkii aan la kulmay wey inta kale waxay noqotay marka qof kasta a meelaha ceelgaabta intaan taga yoobsan baabuurta burco ka imaanaysa inaan raadiyo ama waqooyi ka imaanaysa marka anagu waqooyin baan wada odhan jirno ma anaan kala saari jirin marka degaanada marka aniguna dee reer koonfureed baan ahay muqdishoan ku dhashay marka waxaa dhacday inaan anigii marka aan safar galo laakiin waxaan safarka gelayaa xilli dambe oo aan muddo raadinayey marka adigu sanad bay igu qaaday marka burcaan u safartay burcaan u safray waana weligii arag waqooyi cidna kama aqaano hotel baan ku degay marka laakiin waxa i hagaya wiil aan isku xaafad ahayn oo aabihii uu booliis ahay oo burco laga soo bedelay ninkaasaa marka iyay hagayo oo meel ii tilmaamay meel maqaaxi ii tilmaamay xaafadda halkaa ku deg ninkaa hebel la dhaho isu sheeg ninkaasaanu saaxiib nahay de gabadhii raadi de marka meeqo ugbaad baa jirta magaalada burco gabadh ugbaad la yidhaha ka raadi waa hawl miidhan haye ka raad waa hawl miidhan wey in ayaheedana ma aqaan markaad dhalinyaro tahayna wax badan baa ku sheegaya moogtahay marka wixii aan ka seexan waayey laxawgii heesihii aan tirin jiray waxyaalo badan yaan muxuu ahaa yaa igu dhashay oo waxaa ka mid ahayd humaagaan arkaynaya haatufya kalgacal baa intaa ila hadlaayo horey ii tilmaamay marka waxa aanan arkaynin baa marba ilaa halkaasii joogtaa ka raadi marka waxay igu noqotay gabadh alla gabadhii lahjada waqooyi ku hadlaysa ama ilka dabana leba horta inaan raadiyo ondhatoloma iyadiiba cod haddaan maqlo gadaal inaan bas anoo saaran haddaan sheekada ku maqlo hadda dhowr tuduc baad tiriso heesa ma adigaa berigaa tiriyey mise waa sugaan hore loo tiriyey baad nafta ku dhayi jirtay ama aad ku daweyn jirtay anaa sameeyey cabdixakin anaa sameeyey heesa intaan sameeyey weliba muusig baan saari jiray intaan saaro saari jiray haddaynu dib u milicsana markaa sugaantii beriga aad nafta ku maaweelin jirtay dee dabcan saan dareemaya waxay ku beegantay xilligii fanka soomaalidu aadka casriga u ahaa aan idhaahdee dee weliba sugaan badan la tirin jiray awoodda badan lahaa jacaylkuna de wax badan qiimo lahaayo heese badan laga samayn jiray heesihii aad berigaa ama aad dhegeysan jirtay nafta ku maaweelin jirtay ama aad tirin jirtay ama aad in uun aad isu qaboojin jirtay hadda maxaa ka mida mid iyo labaad naga xasuusi horta heesaha aan ugu jeclaa waa hees u qaadi jiray cidda samaysa ma aqaano muuse ismaaciil qalin leh heesaha kale muxuu ahaa miska daba maqiiqa ah waxa kuu muraad qumiyaha ruuxa muuqanaya magaalada ma joogte shalay moodha raacday miska daba maqiiqa waagaaga sheekada way noo sii socon doontaa bal marka hore aynu wada dhegaysano heestan oo u qaadayo fanaanka muuse ismaaciil qalin leh baan mirtidhe kala iga muruka
malgacado marla arag intaan helay aan maleyta waaye muxuu badaa kalgacalkay malaabiigu dheelo muxuu badaa kalgacalkay malaabiigu dheelo markaa ii marmariso markaan muudisaa idhi bay meesha igu banayse markaan muudisaa idhi bay meesha igu banayse waxaa ku muraad gumiya waxaa ku muraad gumiya ruuxa muuqanaaye magaalada ma joogto shalay moodha raade waxaaba la xasuustaaba iyadana sheekadii kale heesta beledweyn ka dhalatay ee maxaan ku idhaahdaa maxamed ibraahim warsame hadraawi tiriyey ee gabadhii uu ka tiriyey marka gaadhigu markuu hoonka yeedhiyey gabadhiina soo dhaqaaq la yidhi waxaa tidhi soo taliyo baasoo baana warmoogi macnaha taydii ma beenayn ha haddaan lahaan lahaa awoodda hal abuur maanso hadraawi markaa uu lahaa haddaan lahaan lahaa waan tirin lahaa laakiin awoodaydii kale ee sheeko qoraal yaan marka awal sheekooyinka yarar intaan qorqoro yaan iskuulka marka la joogay fasalkii iyo ardadii saaxiibadan oga sheekayn jiray maana qori jirin markaasaan ku dhiiraday inaan sheekada aan qoro marka awoodaydan kale yaan adeegsaday laakiin dee kartidii hadraawi maanan lahayn ilahay caafimaad fiican oo taamaha siiya laakiin heesihii aan qoray yaa iyaguna dee muxuu ahaa aniga raad igu yeesho oon muusig saaray oo halka qabri dahray harar iyo wardheer iyo hareeraha tog dheer baan kaa haybiya adiguna inta habardogaaga halac iyo abeesada ayaan hoy wadaagnaa halka wada boqolla adiguna hobaashi warba iyama haysido oo guriga hooyada hagarla-aan u jiifta marxumaagaan arkayniyo haatife galgacal baa intaa ila hadlaayo horay ii tilmaame marka heesihii aan u tirinayay bay ahaayeen oo aan naftayda aan iskula meela waayelin jiray weliba laakiin waagaas cidladana aad u jeclaa inaan cidloodo oon barnaanka keligay aadoon meelaha marmaro oo axsaabta xitaa waan ka go'ay si aan iyada ola faqoon iyada u raadiyo oon maskaxdii aan usoo dhirandhiriyo marka sida buugga magaciisaba sida sheekada magaceedaba ka muuqata gabadhaa dib umaad arag markaasaa kuugu dambaysa ha